habeen wanaagsan akhyaarta wadaniga daawanaysay waa markale iyo barnaamijkeeni wararka iyo caawa qodobadaan idinku hayana waxa kamid ah madaxweynaha taladiisu ku kooban tahay qaybo yar oo kamid ah gobolka Banaadir Xasan Sheikh Maxamuud oo goordhoweed hadlay oo afkiisa ay ka soo yeedheen hadaladii ugu la yaabka badnaa uguna catowga iyo calaacalka xumaa ee laga maqlo abid Xasan Sheikh Maxamuud oo goordhoweed ka hadlay fiilada uu uga taliyo qaybo kamid ah gobolka Banaadir ayaa wuxuu u muuqday in ay hadaladan ka keeneen carada iyo muraarad dilaaca uu ka qaaday aqoonsiga Soomaaliland ay siisay dawladda Israa'iil haddaba daawadayaal waa kan isagood moodayno oo iyo muuqaalka share gareeya YouTube kana subscribe sara haddii aad hore noola joogteen aad baad mahadsantiin daawasho wanaagsan dadka Soomaaliyeed ee waqooyigu اعترافku idin kama jiro Netanyahu wuxuu idin ka jiraa dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed ee dadnimo diin iyo dawladnimada aad wadaagtaan waxaan markaa cadeynayaa in jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay tahay dal xor ah mid ah dhulkiisa aan lagu kala goyn karin warqad ay Israa'iil qortay ama saxiixay Netanyahu oo isagaba eedeysana caalamka ka ah ujeedada aqoonsi ku sheegaas ma aha danta dadkeena ku nool deegaanadaas ee waa danta Israa'iil oo raadinaysa dhul ay isku ballaariso oo ay si sharci darro ah ugu soo rarto shacabka reer Falastiin ee dhulkooda ay boobtay kana dhisto saldhigyo military oo qalqal geliya amniga gobolka geeska Afrika gacanka cadmeed badda cas iyo guud ahaan bariga dhexe walaalayaal arrinkan wuxuu raad aan fiicnayn ku yeelan doonaa dhaqaalaha horumarka iyo deganaanshiyaha siyaasadeed ee dalkeena haddii si xigmadi ku jirto aanan u maareynin